guddiga ku-meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo xubnahoodii shalay soo gaaray Baydhabo waxa ay maanta kulamo la qaateen golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaybaha kale ee bulshada rayidka waxaana lagu aruuriyay qaabka ay noqonayso doorashada Soomaaliya 2021 kulamada kadib wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa la hadlay warbaahinta asigoona ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaga iyo guddiga ku-meel gaarka baarlamaanka federaalka ee dib-u-eegista sharciyeedka doorashooyinka qaran iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigaas oo maalmaha ku sugnaa magaalada Baydhabo iyagoo kooyan inay leedahay kulahada mise wadahadal ku keliya aragtida dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku qaban hindisa sharciyeedkaas iyo horeen guddigii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka baarlamaanka guddiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya Ansaari guddigaas oo markii ku horeeyay doorashadiisa wadahadal ku bilaaway Koonfur Galbeed meelaha ku mahadnaqay guddigaas oo leedahay sida wanaagsan Qaabkee aragtida meelaha wanaagsan ay meelaha iyo dadkooda iyo waligeena Koonfur Galbeed guddigu way ka darsan karaan amay ku dhiman karaan aragtaha oo meelaha sharciyeedkaas golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku geeyeen aragtida ku qabeen iyo waliba ku aaminsan doorashada 2021 oo doorashada gudaha Soomaaliya nooca laga doonto leedahay doorashada nooca Qaabkee marka aragtida ku aaminsan Koonfur Galbeed doorashadaas hal qof qof soo qortay haddii la wada koro nooca qodob leedahay kontinuity la kagay مسويلك نجاي gudaha hal qof ee codana laga qorto ama tirada la badiyo leedahay kontinuity la badiyo doodaha leedahay inta muhiimsanayo ku tahay aragtida soo Koonfur Galbeed qabto Koonfur Galbeed ahaan way u bixin aragtida inuu raadinayo golaha wasiirada ugu metelaan shacabka Koonfur Galbeed oo ka aragtidaas meesha leedahay insha Allah taala aragtidaasna ay caddaayeen guddiga kulli socdaal si socdo way badanaanka maradoona dowlad goboleedyada gudaha Soomaaliya ويا نسمع إن شاء الله تعالى الصومالي يكون doorashada lagu qaaday tasmiim waayo laakiin waxaan noocyada doontii qaabka ay wali badan wada hadal badan kala qaladon oo wali waa marasmeel ku jiray laakiin tahay ani aragtida ku aaminsan sida kadar fikirkaas bisay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah maamulkii ugu horeeyay oo laga qaado aragtiyada doorashada Soomaaliya waxaana guddigan sidoo kale inta ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shukri Ismail Ahmed RTN Baydhabo.